السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وهذا أدي هذا وما تسنتهين مقال كانوا حرباينا إن كل وذاقوا مدحوين ترامب ومان تعالم كوشيجي إن هشيسكي إيران يا أمريكان كمالين تبريح للصحيح دونه حدوا مدحوين ترامب برتيس ترو سوشيال كأيا قرال دير أو كسو قري قرال كاسي محو كل يهينا وان إذن لو وذاقيا قضبضا هشيسكا لبضا دناعي كلا صحيحنا يان حد محيهين iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran oo sheegay in heshiiska laba waji uu noqon doono wajigan koobaad oo berri la saxiixayo iyo waji labaad oo wada hadallo kale la isugu soo laabanayo arrintaasina waan idin la wadaagaya madaxweyne Trump maalinta beriyaha 80 jir ayuu noqonayaa laakiin aqalkii cad waxa uu u bedelay meel lagu feertamo feerka la yiraahdo Ultimate Fighting Championship ayaa maalinta beriyaha lagu qaban doonaa aqalka cad isla markaana madaxweyne Trump waxa uu leeyahay sanad guurada 250aad ee xornimada Mareykanka ka soo wareegatay ayaa loogu dabaaldegayaa laakiin dadka dhaliila waxa ay leeyihiin dhalashadiisa ayaa loogu dabaaldegayaa saaxiibadii ayaana ka faa'iideysanaya arrintaasina waan idin la wadaagayaa sidoo kalena ninkii adduunka ugu taajirsanaa Elon Musk markii hore bilyaneer ayuu ahaa laakiin hadda trilyaneer ayuu noqday imisa sano ayaa maalin kasta 1 milyan oo dollar haddii uu qarash gareeyo ay ku qaadanaysaa lacagtiisa inay dhamaato arrintaasina waan idin la wadaagaya waxaan maalnimadii shalay ahayd idin sheegay in labada dhinac ee Iran iyo Mareykanka ay heshiis isfaham ay gaareen isla markaana la filayo dhawaan in la saxiixo haddaba madaxweyne Trump ayaa bartiisa True Social-ka qoraal dheer ku soo qoray waxa uu sheegay in heshiiskaasi maalinta beriyaha la saxiixi doono madaxweyne Trump qoraalkiisa waa dheer yahay laakiin nuxurka ayaan rabaa inaan idin la wadaago waxa uu dhaliilayaa horta madaxweyne Barack Obama uu leeyahay heshiiskii Iran uu la gaaray wuxuu ahaa mid fudud isla markaana qurux badan kaasi oo Iran u sahlayay inay hub nuclear yeelato 6 sano ka hor waxana uu sheegay in hadda heshiiska anigu aan la galayo yiri Iran arrintaas waa uu ka bedelan yahay oo waxa uu dhigayaa in aysan hub nuclear aysan yeelanin isla markaana xitaa aysan soo iibsanin aysan hormarinin wadamo kalena xitaa aysan ka soo qaadanin marka waxa uu leeyahay heshiisku waxa uu qorsheysan yahay in berri la saxiixo waxa la filayaa magaalada Geneva ee dalka Switzerland in lagu saxiixayo madaxweyne ku-xigeenkana uu dhinaca Mareykanka uu uga qayb galayo Trump isagu ma tagi doono wuxuu yiri isla markiiba marka la saxiixo waxa si rasmi ah loo furayaa marinka Hormuz cid kasta ayaana loo furayaa waxana uu sheegay xiriirka Iran ay la leedahay caalamkana waa uu ka bedelnaan doonaa sidii hore wuxuu yiri Obama markii uu heshiiska la gaaray Iran lacago fara badan ayuu siiyay laakiin hadda waxa uu yiri lacagahaasi annagu ma siin doono walow hadda heshiiska ay qayb ka tahay in Iran lacagihii hore looga xanibay la siiyo marka waxa uu sheegay in lacagaha Iran ay siinayaan aan bangiyo lagu kala xawileen laakiin gacanta laga siinayo waa sida isagu uu leeyahay waxa uu leeyahay sidoo kale uraniumkii Iran ay bacrimisay oo diyaaradaha Mareykanka ee B2ga ay diqayeen bishii June ee sanadkii hore waxa uu yiri inaga ayaa soo qaadanayna Iran wali arrintaasi waa ay diidan tahay mana aysan sheegin marka madaxweyne Trump wuxuu yiri waxaan si dhow ula shaqeynaynaa dawladda Iran mustaqbal wanaagsan ayaan Iran iyo bariga dhexe guud ahaantiisba aan u rajaynaynaa yiri marka waxaan jeclahay yiri in processkan uu noqdo mid si fudud ku dhamaada isla markaana waxaan rajaynayaa ayuu yiri in uu noqdo mid soo gabagaboobo marka madaxweyne Trump waxa uu leeyahay heshiiskii u dhaxeeyay Iran iyo Mareykanka berri ayaa la saxiixaya haddaba qodobada wajiga koobaad ku jira maxaa kamid ah waxa kamid ah qodobada berri la saxiixayo 60 maalmood oo xabad joojin ah dhammaanba dhinacyada ishaya oo xitaa Lubnaan ay ku jirto oo Israa'iil duqeymaha ay ka joojinayso waxa kamid ah qaabab dawladda Iran lacagihii hore looga xanibay loogu fasaxi karo oo ilaa iyo 24 bilyan lacag ka badana marinka Hormuz in la furo oo cid kasta loo furo isla markaana Mareykanku uu qaado go'doominta uu Iran saaray in saliideeda ay dhoofiyaan waxa sidoo kale jira in wada hadallada ay sii soconayaan isla markaana la gaari doono heshiis kama dambaysa oo waara marka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa isaguna warbaahinada u sheegay in heshiiskan uu laba waji yahay wajiga koobaad waxa uu yiri hadda waa heshiis isfaham ah laakiin wajiga labaad waxa uu yiri waa mid la doonayo in xal waara looga gaaro colaadda Mareykanka Iran
u dhaxaysa waxaana uu sheegay in ay muhiimadeedu tahay dhinaca nukliyeerka. heshiiskan isfahamka hadda waxyaabaha la saxiixayo nukliyeerka kuma jiro. marka wasiirka arrimaha dibadda wuxuu yidhi arrimaha nukliyeerka Maraykanka waxyaaba aan isku fahanayna waa ay jiraan oo ku heshiinay, waxyaaba aanan ku heshiininna waa ay jiraan. marka wejiga labaad ee wadahadallada ayaa dhinaca nukliyeerka dib loogu dhigay ayuu yidhi. arrinta heshiiska Iiraan iyo Maraykanka haddii halkaasi aan ka gudbo, madaxweyne Trump maalinta beri 80 jir ayuu noqonayaa. laakiin waxaa la yaab leh aqalkii cad in uu u bedelay meel lagu feertamo. madaxweyne Trump ilaa iyo 25 maalmood ee lasoo dhaafay aqalka cad dhinaciisa koonfureed banaankiisa waxaa laga dhisayay goob weyn oo feerka la yiraahdo UFC oo Ultimate Fighting Championship lagu qaban doono habeen dambe oo Axad ah. arrintan waa arrin la yaab leh in aqalka cad laga dhigo meel lagu feertamo. marka ninka madaxda ka ah UFC-ga kambanigaasi oo Dana White la yiraahdo, Trump saaxiibo ayay yihiin, siyaasad ahaanna Trump ayuu taageersan yahay, xitaa waxa la leeyahay Trump share ayuu ku leeyahay. marka 20kii bishii May ee lasoo dhaafay ayaa waxaa bilaabatay in dhismahan weyn oo idiin muuqda banaanka aqalka cad laga dhiso. 700 ilaa iyo 900 oo shaqaale ah ayaa ka shaqaynayay. xitaa waxaa jirtay 2 qofood oo ciidamada ka tirsanaan jiray cirka Maraykanka oo la kala yiraahdo Susan Douglas iyo weliba Paul Romano ayaa dacweeyay oo yiri arrintan hantidii shacabku ay lahaayeen ayaa si shakhsiyana looga faa'iideysanaya. garsoore Obama uu magacaabay oo la yiraahdo Amit Mehta ayaa arrintaasi ka soo horjeestay shalay Jimcadii oo wuxuu yiri labadan qof ma aysan soo bandhigin waxyaabo ah in iyaga ay dhibaato ku tahay ama dad kale ay dhibaato ku tahay dacwadan ay soo gudbiyeen. marka dadka dhaliila Trump oo dimuqraadiyiinta iyo siyaasiyiinta kale ay ka mid yihiin waxa ay leeyihiin arrintan waa arrin looga faa'iideynayo dadka saaxiibka la ah Trump, isla markaana waa arrin musuqmaasuqa maadaama dhulka aqalka cad uu shacabka Maraykanka uu leeyahay. saaxiibadii ayuu Trump uga faa'iideysanaya. qoyska Trump xitaa waxay iibanayeen kaarar ilaa iyo 12,000 oo dollar in lagu iibinayo oo 250 ilaa iyo 12,000 oo dollar lagu iibinayo. marka aqalka cad waxay leeyihiin arrintan waxaa loogu dabaaldegayaa sanad guurada 250aad ee xornimadii Maraykanka ka soo wareegtay. laakiin waa 4 Juulaay, hadda 2 toddobaad iyo ka badan ayaa ka dhiman 4 Juulaay. laakiin berri maxaa ku beegan dhalashada madaxweyne Trump. marka waxay leeyihiin tan madaxweynaha dhalashadiisa looguma dabaaldegaye waxay hordhac u tahay dabaaldegyada bilowday ee 250 guurada xornimadii Maraykanka ka soo wareegatay. marka waxaa jira xitaa tikidhada VIP-da in lagu iibinayo ilaa iyo 1.5 milyan oo dollar in lagu iibinayo. marka arrintan waxaa la leeyahay waxa ay muuqataa in looga faa'iideynayo saaxiibada madaxweyne Trump. waxaa sidoo kale hadda la leeyahay dhinaca ammaanka security-ga maadaama madaxweyne Trump golihiisa wasiirada iyo mas'uuliyiin kala duwan ay ka qayb galayaan, waa in ammaanka aad loo adkeeya. 7 hay'adood oo federaal ah ayaa ammaanka sugaya. lacagtaasi marka ma lacagtii canshuur bixiyaasha Maraykanka ayay ka baxaysaa? yaa lacagtaasi bixinaya ayaa la isweydiinaya. qabanqaabada arrintan waxaa ku baxday 60 milyan oo dollar, laakiin Trump waxa uu leeyahay lacagta canshuur bixiyaasha Maraykanka laguma bixin oo waxa bixiyay shirkadan ama kambanigan UFC-ga la yiraahdo waa Ultimate Fighting Championship-ka. marka sida muuqata arrintan hadda habeen dambe dhacaysa maadaama berri ay tahay dhalashada madaxweyne Trump dhalashadiisa 80 ayaa loogu dabaaldegayaa mise waxaa loogu dabaaldegayaa 250 guurada xornimadii Maraykanka ka soo wareegatay. arrintaasina muran weyn ayaa ka taagan. sidoo kale waxaa jirta madaxweyne Trump waa tii garsoore federaal ah toddobaadkii lasoo dhaafay uu amray in magaciisa laga fujiyo xarunta Kennedy Center. haddaba shalay oo Jimco ahayd 14 maalmood ayaa la siiyay in looga fujiyo. shalay oo Jimco ahayd ayaa laga fujiyay magacii Trump xarunta Kennedy Center. waxaana garsooruhu markii uu amrayay in magaca Trump laga fujiyo Kennedy Center uu yiri Congress-ka ayaa iska leh xuquuqda magaco bixinta iyo magaca ka bedelida xarunta Kennedy Center. sidaasi ayaana looga fujiyay. hadda waxaa soo baxday madaxweyne Trump bishii hore markii check-upka caafimaadkiisa la marsiinayo isbitaalka Walter Reed lagu marsiinayay in uu la kulmay 22 dhakhtar oo specialist ah. weli ma dhicin ayaa la leeyahay madaxweyne in 22 dhakhtar oo specialistiyaal uu la kulmo. dhakhtar qofku inuu noqdo iyo inuu specialist noqdo waa ay kala duwan tahay. specialist waxaa la yiraahdaa dhakhtarka waxyaabaha gaarka ah ku takhasusay. marka 22 dhakhtar oo cudurro kala duwan ku takhasusay ayaa madaxweyne Trump
eegay caafimaadkiisa markii bishii hore uu tagayay. Trump waxaa la leeyahay hadda maadaama 80 jir uu beri noqonayo, waxaa inta badan la arkayaa kulamada aqalka cad ka dhacaya marka qof kale uu hadlayo isagoo hurdaya. Waa kii Sleepy Joe dhihi jiray, hadda waxaa la leeyahay Sleepy Trump ayuu isku bedelay. xitaa mararka qaar waxaa la arkaya warbaahinada qaar ay soo bandhigayeen madaxweynaha marka uu socdo diyaaradda Air Force uu ka soo dego si straight uma socon karo, waxaa la arkayaa isagoo weefaya. taasina waxaa la leeyahay calaamadaha Alzheimerska ayay ka mid tahay, qofku markuu la leemo iyo asaasaq cudurkaasi uu ku dhacayo. marka madaxweynaha waxaa aqalka cad uu sheegay caafimaadkiisa inuu 100% uu fiican yahay, laakiin waxaa la arkaya lugihiisoo bararan, waxaa la arkaya gacmihiisoo madmadow. marka 22 isbitaaliste inay arkaan madaxweynaha, arrintaasi shaki weyn ayaa hadda ka soo baxaya. ugu dambeyntii ninkii adduunka ugu taajirsanaa ee Elon Musk maalnimadii shalay ahayd, taajirnimadiisii bilyaneer ayuu marayay, laakiin trilyaneer ayuu gaaray. sababtu maxay tahay? shirkadiisa SpaceX ayaa shalay public noqotay, waxaana loo fasaxay dadka shacabka inay sheerar ka iibsan karaan. suuqyada saamiyada ayayna soo gashay. marka 1.1 trilyan ayaa hadda lacagtiisu ay kor usii dhaafaysaa. 4 nin ee bilyaneerada ah ee isaga ku xigtay marka lacagtooda la isku daro, hadda isaga ayaa ka lacag badan. marka waxaa la leeyahay haddii maalin kasta Elon Musk lacag $1 milyan uu qarash gareeyo, waxay ku qaadanaysaa lacagtiisu inay dhammaato 2740 sano. marka waa sanado aad u fara badan. Elon Musk marka hadda waa ninka adduunka ugu taajirsan, waana qofkii ugu horeeyay ee trilyaneer noqda. xitaa magaca aad u dhib badan yahay Soomaaliya. waa qofkii ugu horeeyay ee $1 trillion gaara guud ahaan caalamka. ma jirin qof horey lacagta intaasi la eg hal mar yeeshay. markii hore milyaneer iyo bilyaneer ayaa lagu tarjami jiray, laakiin hadda sheekadu waxay noqotay trilyaneer inuu noqday ninkan Elon Musk. marka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa asxaabay warbixinadii aan maanta idiin soo ururiyay. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.